مواي قولها إله يا صوري قربداي وي قربداي قربداي تدكيني بيغا وكاكابلاي قربداي 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 تدكيني بيغا وكاكابلاي jarmaado goor hore oo nin iyo geed la kala gartay aanu kaga boqolay gudaha degmada Garadaga wafdi uu horgal u yahay gudoomiyaha gudida abaaraha ee Garadag xildhibaan Cabdilaahi Suleymaan Boobe ujeedkiisuna ahaa gaarsiinta wajigii labaad ee deeqaha biyaha macaan deegaanada miyi ilaa magaalo ee Garadag xukunto iyadoo toddobaad ka hor gabi ahaanba Garadag iyo deegaanadeeda tuulo iyo meel oo reer guura ah taaloba si wada jir ah loo gaarsiiyay deeqo biyo ah oo iskugu jira kuwa qadhaadh oo loogu tala galay xoolaha miyiga ee aan gaari karin ceelasha aroorka dheer loo galo iyo kuwa macaan oo yana dadka reer baadiyaha ah ee deegaanadaasi ku sugan iyo tuulooyinkaba la gaarsiiyay mar kale gudida abaaraha ee Garadaga waxay bilaabeen wajigii labaad ee deeqahaasi biyaha ah oo gabi ahaanba deegaanada Garadaga si isku mid ah loo gaarsiiyay qaybo kamida maamulada deegaanada biyaha la gaarsiiyay qaar kood iyo qaar kamida bulshada rayidka ah ee jilicsan ayaa si guud ugu mahadnaqay gudida abaaraha ee heer qaran ee uu gudoomiyaha u yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo gudida abaaraha ee heer gobol oo iyana maamulo barasaabka gobolka Sanaaga Axmed Cabdi Muuse iyo waliba gudida abaaraha ee heer degmo ee Garadaga oo gudoomiyaha gudidaasi xildhibaan Cabdilaahi Suleymaan Boobe oo intii deeqaha biyahani socdeen baguure iyo jarmaado ugu jiray sidii biyahani u wada gaari lahaayeen meel kasta oo biyo la'aan ka jirto kani waa tuuladii Sincaro annaguna waxaanu nahay waayeelkii tuulada Sincaro waxaan maanta na soo gaaray oo aanu magaalada u qaybinay biyihii macaana ee ka yimid ceelka Ilad oo waxaan soo gaaray 5 booyadood oo min 40 ah oo biyaha macaan ee Ilad ka yimid ah biyahaasi si aad iyo aad bay maganaysa waxtar u noqdeen dadkana waa ku filaadeen waana u baahan yihiin runtii dadku biyo inta ka badan oo intani waxa weeye de ku joogeenka horun bay noqotay waxa kale oo na soo gaaray biyihii xoolaha iyo dadka miyiga oo iyaguna ma garanaysa si wanaagsan ma garanaysa dadka loogu qaybiyay una gaaray insha Allah taala waxaan leenahay ilaahay bad dadku wax ku filaysiyo bini'aadamku waxba kuma filaysin kara waxaanu sameeynaa waxaanu doonaynaa ma garanaysa in dadaal la sameeyo oo ma garanaysa maamulada degmooyinka gobolada iyo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaridka iyo ummadda kale ee reer Soomaaliland ee waxtarka ah dhamaantood waxaanu leenahay maanta mashquulkeenu ha ahaado sidii aynu abaaraha iyo dadka ay haystaan wax looga qaban lahaa rahmatullaahi barakaatu degmada Garadaga biyaha naga soo gaaray wayna soo gaareen si fiican waa noo soo gaaray dadka noo soo dhiibana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin inamada noo keenayna aad bay noogu fiican yihiin noo soo gaarsiiyay sheegeen waa noo soo gaaray Sincaro loogu tala galay alxamdulillaah rabbil caalamiin shabeeyood baa soo gaaray biyahana waa laba biyo qadhaadh bay ahaayeen oo loo keenay reer miyiga gudoomiyaha gudida abaaraha ee Garadaga xildhibaan Cabdilaahi Suleymaan Boobe oo deegaanka Sincaro oo kamid ah goobaha biyahani gaareen isla saakana loo shubay ka hadlay ayaa gudida kala duwan ee abaaraha heer qaran iyo heer gobolba ugu horeyn uga mahadnaqay soo gaarsiinta deeqahan biyaha ah wuxuu sidoo kale Cabdilaahi Suleymaan Boobe deeqo raashin iyo biyaba ah ka kala dalbaday hay'adaha aafooyinka qaranka iyo kaydka raashinka iyo sidoo kale gudida abaaraha ee heer qaran iyo waliba cid kasta oo taakulo ka geysan karta xaaladda abaareed ee deegaanadani ka jirta waxaan ku guda jirnaa hawlihii biyo dhaaminta ee tuulooyinka hoos yimaada degmada Garadag iyo degmada gudaheedaba runtii halkan aanu hadda joognaa waxa weeye tuulada Sincaro waxaan soo gaarnaysiinay 5 booyadood oo biyo macaan ah
biyo xoolaha horaan u soo gaarsiinay biyo xoolaha iyadana si fiican baa dadkii loo gaarsiiyay waxaanu kolley kormeer iyo supervision in meel walba wixii aanu ugu talagalnay ay sidii u gaadheen inaanu biyahan u soo dhibnay biyo saxda ay yihiin in aanu quality-gii iyo supervision-ka labadaba wada marino oo wax waliba halkii loogu talagalay ay gaadhaan iyo intaanu ugu talagalnay ka degma ahaan ka gudi ahaanna heer qaranna intii ay ugu talagashay ay gaadho runtii waxaanu hadeer aad iyo aad uga codsanaynaa guddida abaaraha ee heer qaran in deegaamadan ay tahay deegaamada ka aadka loogu soo guuray saameyn badanna ay ku yeelatay oo runtii ceelasha hadeer ceelka ku yaallay ceelka biyaha qadhaadh habeen iyo maalin waa laga cabayaa xaaladda amniga marka la eego iyo xaaladaha kale la eegoba waa tuulooyinka bay ku jirtaa ugu hawsha badan ee ay ku dhacday waxaanu kolley hadeer aanu ka gudi ahaan aanu halkan soo gaarsiinay waxa weeye intaasoo biyo deeqda biyaha oo kooban runtii bulshadana waxaanu uga mahad celinaynaa sida nabadgelyada leh sida quruxda badan ee ay u wada cabeen biyihii ay biyina ugu wada dhaceen waxaanu runtii soo jeedinaynaa oo aanu u soo jeedinaynaa bulshada inay nabadgelyada ilaaliyaan haddii nabadgelyo la waayo biyo qaybini ma jirayso isdhex socod ma jirayo ceela laga wada cabaya ma jiraan waxaan bulshada ka codsanaynaa oo ku wacyigelinaynaa mar walba nabadgelyadu inay tahay tiirka koowaad nabadgelyo marka la helo ayaa waxqabad kasta imanaya aad iyo aad baan iyadana uga mahad celinaynaa ka gudi ahaan iyo ka shacab ahaanba aad iyo aad baan iyadana uga mahad celinaynaa guddida heer qaranna waxaanu leenahay dadaalka iyo aad ku jirtaane aad sayd la doonayo ilaa min madax min minjo min tuulo min miyi runtii wax loo gaarsiiyeyna lafteeda waxaa dadaalkeeda iska leh guddida heer qaran iyo xukuumadda jamhuuriyadda somalilan iyadana waanu uga mahad celinaynaa ugu horeeyo garwadeenka uu yahay mudane muuse biixi cabdi iyadana waxaanu uga mahad celinaynaa kolley dadaalada ay wado oo runtii ay wado qolada Notfordna waxaanu ka codsanaynaa raashinkii in la soo dedejiyo bulshada raashinkiina loo soo dedejiyo iyadana intaasaanu ka codsanaynaa qolada Notford oo markii horena raashin qaboojina keentay waliba tuulooyinka keentay ay ka mid ahaayeen maxamed gumburi telefishinka caalamiga ee bulsha TV gar adag